RAM waa maxay hard drive waa maxay processor maskaxdaada ma kusoo dhacda intaas oo dhan miis weydiiso computerka siduu noo fahmaa maadaama laba qof oo bili-aadan ah oo isku luuqad ahayn Chinese iyo adigoo Soomaali ah haddaad kulantaan aad isfahmaynin su-aalahaas oo dhan maskaxdaada ma ka guuxayeen luuqaduu fahmaa computerka luuqadda annagii computerka naga dhexeyso maxay tahay maxaa gudihiisa ku jiro sidee isula falgalaan mawduucyadaas dhan ayaan ka hadlaynaa waxaa ugu muhiimsan 7 shay computerka oo dhan 7daas shay ayaan si guud u kala sharxaynaa waa kuwaas 7daas u jeedid 3 iyo 3 ay u kala qaybsamaan 4 iyo 3 u kala qaybsamaan 3 simple ah iyo 4 complex ah 3da simple-ka ah markaad desktop haysato waxaa kamid ah case-ka aad aragto ballaaran ee ka dambaysa desktop-ka power supply-ga ama qaybta sharciyeysa qayb walba oo computer kamid ah sidoo korontada iyo uga faa'iideystaa motherboard-ka ama mareegta computer-ka iyo 4tan oo gees ah oo ah graphic design-kii RAM-kii hard card-kii iyo CPU-gii aan kala qaadna marka 3 iyo 3 simple ah oo qof walba fahmay iyo 3 complex ah waxa ku soo hadlay boxkan weyn ee plastic ama ka subsan caaga qof walba yaqaano oo laptop ama desktop haysta badanaa waa box ka weyn wuxuu kaydiyaa dhammaan xogta computerka ku jirto waa protection markaad furto ama gudihiisa gasho arkaysa qof walba garanaya taas wax meena uma baahna waana la fahmayaa qof walba oo computerka haysta laakiin waxyaalaha muhiimka u baahan maxaa waaye saliska iyo unugyada computerka ku jira gudihiisa sidee iskula falgalaan korontada sidee u kala xadidaan mid yaa sharci gareeyo wax kastoo computerka kamid ah qaybtaas ayaan oga hadli doonaa qaybtaasna waa power supply-ga aan hadda ku tusaayo waa qaybta ku xiriirto charger-ka ood aragtay marka computerka charger-kiisa saan u yahay waa qaybta sharciyeynaysa qayb kastoo computerka kamid ah qaybta ila xiriirto waay tusaale maxaa daawanaysaa filanka mise game aad ciyaaraysaa gameka wuxuu u baahan yahay koronto badan ama wax badan u baahan yahay CPU-ga waa qaybta ula xiriiraya u dhahayo intaas u baahanaa intaas ma haysa waa qaybta kaydisa computerka korontadiisa kuna xiriirsan charger-ka macnaha directly computerkaada haddii korontada lagu xiriiro qarxaya waa qaybta marka sharciyeysa qayb kastoo korontada kamid ah waxaa ku soo hara motherboard-ka waa qaybta mareegta computerka ama hooyada unugyada dhambaalada computerka sida computerka uu wada xiriiro waa waxa ujeedaa waa qaybta dhan ee keedinaysa dhambaalkii waa magaalo dhan oo ka subisan transistors iyo mareegyo yar yar oo capacitors IC ama integrated circuits ka subisan waayo waa qaybta badanaa qaalisaas u maahan markii loo bandhigaa waxa gudaheeda ku jiro macnaha ayada waa dukaan weyn oo gudihiisana wax badan ay ku jiraan oo muhiim ah okay 3daas waa 3da simple-ka ah aan u maana 3da complex-ka ah ama 3da ku saabsan data ama xogta 3daani waa 3da computerka ugu muhiimsan oo qof walba oo IT ama engineer ah ama daneynaya computerka gudihiisa inuu aqoon ka helo inuu ogaado u baahan tahay 3daas maxay tahay waa CPU-gii waa RAM-kii waa hard drive-kii waa graphic card-kii okay waxaan u kala soo mid doonaa magacyo mid kasta wuxuu taagan yahay CPU-ga waa maskaxda computerka ama central processing unit udub dhaxaadka howlgalka computerka ama cutubka computerka u qaabilsan howlaha guud anyway wax kasta oo computerka la qabta shay walba even tiny processing CPU soo mara RAM waa random access memory ama memory-ga maskaxda fudud oo wax yar xasuusta gaaban hard drive waa cajalada wareegsan oo taqaanid waa storage ama memory-ga xasuusta dheer ee wax kaydiya anaa ku sharxi doona xasuusta dheer macnaha maxaa laga wadaa graphic card waa GPU waa qaybta computerka u qaabilsan qaabka display-ga levelka display-ga ama muuqaal kastoo lasoo bandhigayo qaabka pixelska computerka ku jiro iyo sawirada qaabka loo soo bandhigayo graphic card ayaa qaabilsan okay aan xabad usoo qaadna marka 4tan waa fahantay CPU RAM hard drive graphic card CPU-ga noo keen CPU-gii waa central processing unit wuxuu kaydiyaa uu qabtaa shaqooyin kasta oo computerka qabanaya waa qaybta qabanaysa waaya wuxuu leeyahay
very low data storage wax yar ayuu kaydin karaa bas macnaha inuu wax kaydiyo loogu tagay inuu wax xasuusto loogu tagay inuu wax qabto bas loogu talagalay sida ogeed wax yar xasuustaa macnaha maxaa dhacay yaa xasuust u hayo computerka hard disk ama drive-ka oo hayso Soomaa asiga maxaa programkan ran gareena bas tusaale ahaan waxa u baahan tahay inaad code qorto ama aad film daawato filmkii qaybta daawanayso ku keena oo ku bandhiga qayb kasto computerka midna uu isku xiraa tusaale ahaan filmka wuxuu ku jiraa hard drive-ka filanka yaa raba quruxdiisa yaa soo bandhigaya quruxdiisa waxa soo bandhigaya graphic design-kii keyboard-ka xaraf qaraacday xarafka keyboard-ka yaa ka soo qaaday keyboard-kii filadii waa qaybta xiriirinaysa macnaha waa brain of the computer brain maxaa maskaxda maxay qabataa bilaadanka maskaxda markaad inaad taabato rabta shay yaa ku dhaysa gacanta idaa ku dhaysa taabo Soomaa waa kana tusaale fiiriya cajaladii ku xiriirsan yahay wuxuu ku jiraan hard disk-kiga ku jiraan hard disk-kiga laga soo qaadaya waxa la keenaya memory-ga uu keensanaa random memory-gaan uu keensanaa random memory-ga markaan CPU-ga la keenaa wax monitor-ka la keenaa markaas RAM-ka ku soo haray RAM-ka waa maxay iyo hard disk-kiga labadan ma kala fogo macnaha maxaa dhacay RAM-ka yaa adeegsada hard disk-kiga yaa adeegsada hard disk-kiga waxaan kugu sheegay waa cajalada computer-ka ee xasuusta dheer macnaha wax kasto kale soo kugu jiraan RAM-kana waxa way volatile macnaha maxaa way maskax aan xasuus lahayn computerka markaad damiso oo soo daarto filmkii meesha ku maraya waxaas ma xasuusanayso RAM-ku uu turaya xasuus ma leh laakiin yaa xasuustas u hayo oo ka faa'iideysanaya hard disk-kiga cajaladii hard disk-kiga maxay qabanaysaa marka hard disk-kiga waxay caawisaa computerka RAM-ka caawinaysaa RAM-ka ayaa loogu talagalay inuu wax ka soo qaato oo inta loo baahan yahay uu ka isticmaalo tusaale ahaan waxay keedaysaa faylalka weyn filimada daawanaysid buugaagta aad akhrisanaysid waxa soo download gareynaysid xagee loogu tagaa hard disk-kiga waa qaybta computerka oo hard disk-kiga waxay leedahay large storage space weyn leedahay laakiin slow access waay speed ma lahan macnaha speed ma lahan sida ogeed waa asbaabta loo subiyo random memory access macnaha CPU-ga oo ah maskaxdii computerka inuu markasta taga waxa la dhahay hard disk-kiga wuu tagi karaa laakiin way adag tahay macnaha markasta inuu computerka hard disk-kiisa taga way adag tahay sida ogeed waxaa la subiyay RAM oo ah random memory access macnaha maxaa waay markasta la awoodaa oo markasta computerka loo tago oo CPU-ga la furaba intuu ku keedsanaa CPU-ga intuu ku keedsanaa marka qaar ma aragtay computerka markaad film daawanaysa loading inuu soo dhahay loading ma aragtay loading macnaheedu maxaa waaye wuxuu loading u dhaca sababta maxay tahay filmka wuxuu ku jiraa hard disk-ka laakiin CPU-ga siduu u access gareeyo intee la keenayo RAM-ka la keenayo macnaha RAM-ka marka wax kastoo markaas la qabanayo waa meeshii lagu qabanayo waaye hard disk-gana maxaa waaye meeshii wax lagu keedinayo waaye RAM-kana maxaa waaye xasuus ma lahan asiga wax kuma xasuusto wixii aad markaas qabanayso ayuu ku haynaa bise hard disk-ga maxaa waaye way ku xasuusanaysaa wax kasto weyna ku keedinaysaa sida ogeed RAM-ka waa fast macnaha maadaama xasuus lahayn wax kasta uu qabanayo macnaha tusaalahaan waa baqaar weyn baqaarkan dukaan aad leedahay tusaalahaan dukaankan wax kasta kugu jiro badeecada kugu jirto mooska kugu jiro raashinka kugu jiro laakiin haddaad subiso qolol yar ah oo qayb walba ka soo qaado oo meesha dhigato tusaale ahaan buskudkii intaad dhigatay briskii intaad dhigatay basta intaad dhiganaysaa sida mar kastood rabto inaad ka soo qaado macnaha waa sidaas hard disk-ka waa sidaas camal oo baqaarkii weynaa waaye RAM-kiina maxaa waaye RAM-kiina waa baqaar yar dukaan yar oo qayb kastoo kamid ah lagu kaydiyo oo qofkii ku baahan aad ka gadanaysa waa tusaale ahaan waa halka dukaanleyda maxay dhahaan dukaanleyda markii baclaha markaad tagta dharka hore suran ma aragtay oo dadka lagu soo jiidanayo taas camal tusaale ka dhigan karnaa hard drive-ka tusaale ahaan markaad bacda joogto dadka waxay subiyaan dukaamada dhar kor la sura Soomaa kor la sura dharkaas lama gada laakiin isha ku dhacayso oo qofkii soo jiidanaya laakiin dharka saxda xagee ku jiraan waxay ku jiraan way keedsan yihiin dabeeshii qoraxdan waa laga ilaaliyaa waa kana marka hard drive-ka waa space weyn waayo RAM-kana waa space yar oo lagu talagalay markaas waxa la qabanaya in la tuso bise waa tusaalaha qofka wax gadanayo qaybta gudaha ugu jirta iyo qaybta indhaha ay ku dhacayaan yaa badan qaybta gudaha ku jirta waa wax badan qaybta indhaha ku dhacayaan waa wax yar waxaan yarka maxaa loogu talagalay marka in wax lagu qabto bise CPU-gana u dhaxeeya tusaale ahaan CPU-ga tusaale ahaan fiiri CPU-ga waxaanu soo qaadanaa markuu soo qaato waxaan xagu keenaa marka sida uu isticmaalo markaas wuxuu keensanaa RAM-ka marka markasta uu ka isticmaali karaa
tusaalahan markaas yaa falgalay hadiskii waa la iska dhaafaa marka labadaana shaqaysanaya markaad wax daawanayso ama shaqo qabanayso waa laga soo qaadanaa kan fariimaha iyo udhexeeyaan labadaas bis loading marka hadda ku sheegay hadda filna daawanaysaa tusaale ahaan mise muuqaal daawanayso ma loading la soo maqlaysaa mise game inaad furtirtaa gameka loading muxuu soo dhaca loading macnaha muxuu soo dhaca CPU wuxuu keensanayaa RAM ku keensanayaa RAM-ka markii wixii la keenana waa la adeegsanayaa markaas tusaale ahaan gameki aad furtay markaas wax kasti RAM-ki ku yeelan marka tirtay macnaha RAM-ka marka macnaha maxaa waaye waa volatile useful and high access waa fancier programs run more isla markiiba wuxuu ku subinayaa waa speedku waa very high maskaxdiisana way fududahay kan maxaa waaye more installed wax kasto ood soo install garaysa xagee galaan hard drive-ka fiidiyoyada muuqaalada xagee kugu jiraan hard drive-ka laakiin markaad rabto inaad soo bandhigto xagee ku soo bandhigtaa random memory access-ka okay waxaa noo soo haray marka graphic design-ka oo maxaa ta adiga graphic card-ka waa shayga muuqaalka laptop marka gadanaysid waa la fiiriyaa soo ma laptop walba intuu graphic design-kiisa ka badan yahay ayuu ka qiimo badan yahay graphic design-ka waa qaybta u qaabilsan computerka muuqaalka sidoo u muuqana computerada qaar inay cawaaf yihiin maaragtay oo qaabka muuqaalka uu sayd ahayn macnaha graphic design-kooda hoose tusaale ahaan siiba 3D space-ka marka game ciyaaraysa game ma ku ciyaari kartaa computer walba mayo kuma ciyaari kartid waa inaad gadataa computer graphic design-kiisa yahay 3D space macnaheed maxaa waaye saddexda gees oo computerka saddexda shayba 3D space macnaha maxaa waaye waa inaad kor hoos geesaha dhan kala soo wareejiyo gamekana soo rabaa soo ma marka game ciyaaraysa inaad game qayb walba loo xisaabtaa graphic design-ka waa standalone macnaha standalone maxaa waaye waa qayb madax bannaan waaye ayada bas waxay leedahay CPU leedahay tusaale ahaan waa maxay marka 3D space inaan graphic design kuu sharxa rabaa mogta waa inaad fahanto laakiin 3D space aan la gameka aan dheeloyo gees walba waa u rajin karaa soo maha mararka qaar markaad aad location map GPS markaad qof inaad raadisa rabto GPS-ku wuxuu la xiriiraa 3D space waxa la yidhaahdo oo ah 3D space maxaa waaye waa angalka dhammaan angalada dhan waa inay soo geli karaan waa 360 oo square angle ah yaa suurta gelin kara marka with the help of graphic design laantiis lama isticmaali karo markaas gamekan picture-ka aad isticmaalaysa sawirka ma ahan spacekiisa waa one way base sawirka waxaad ujeedaa qaybta hore base laakiin gadaal ma mari kartid soo ma sawir gadaal markaad ka istaagto gadaal ma ka mari kartid sawirka laakiin gameka markaad wareejinayso waa inaad wareejin karto sida loo helo marka game pixelskiisa ay yihiin high resolution image waa in la helo graphic design fiican graphic design-kana wuxuu u shaqeeyaa sidaas 3D space ama 3D world haddaad inaad fahanto rabtana waa inaad xisaabta angalada waxa saaid ugu dheertay hadda lama sharxi karo wax howl weyn waayo oo u baahanba years iyo months in la qaato in la fahmo bese laakiin CPU-ga ma leeyahay 3D world ama 3D space ma leeyahay 3D world wuu leeyahay laakiin uma dhaqmi karto ana uma it's not that much qualified same as this one uma fiicna sida GPU-ga ama midda graphic design-ka ah filimka aad daawanaysa ama muuqaalka aad daawanaysidna yaa caawinaya oo wax kasta ka mas-uul ah graphic design-ka ayaa mas-uulka ah sida u muuqanaya pixelskiisa waa sidaa awgeed laptop walba intuu graphic card-kiisa ka sarreeya ama ka fiican yahay ayuu ka qaalisan yahay muuqaalkana ka qurxan yahay tusaale ahaan maaragta muuqaalada qaar is uploaded cawaafa ku jiro marka CPU-gu yuu la shaqeeyaa tusaale ahaan wax yara meeshaan kusoo bandhigaya fiir shax yara kusoo bandhigaya meeshaan sida gameka ama filanka wax kasoo daawanaya sida u falgalaan uuna oo la shaqeynayo shaqada maxay tahay oo graphic design-ka hadda ku sharxa dhigayso tusaale ahaan RAM-ki waa taqaanaayo RAM-ka meeshaan uu yaala RAM-ka mar kastaba yaa isticmaalo RAM-ka CPU-ga isticmaalo soo ma CPU-ga ayaa wax kasta u qabanaya wuxuu ku qabtaa RAM-ka markuu RAM waa random memory access laakiin gameka iyo filimka xagee lagu jira oo xagee lagu soo install gareeyaa hard disk-ka everything is installed and downloaded in hard disk drive then hard disk-kii markii ay dareento oo fariinta ay usoo dhacda in waxaan la isticmaali rabo maadaama ayada ay tahay very slow yii geenaysaa waxay u diraysaa RAM-kiina yuu u dirayaa CPU-gii toos shaashadii waatana wuu keeni karaa laakiin shaashada lama keenayo intee loo diraa graphic design-ka keena macnaha CPU-ga asbaabta uu adig kugu soo bandhin karin wax maxaa waaye because of it does not have 3D space 3D world ma lahan graphic-ga
way liidataa sidaa darteed shaashada kuma keenaya gamekii wuxuu la xiriiraa graphic designkii ama graphic cardkii ayaa ku keenaya ayadoo dhammaystiran oo high pixel and well look ah ayuu ku keenaya marka sidaa darteed waa fahmi karnaa wax kasta xaggee ku jiraan harddiska ayay fariin u diraysaa ramkina saasuu binaa marka ramkina CPU-gi ma kusoo bandhin karaa no it will communicate immediately to the graphic card and graphic card ayaa kusoo bandhigaya markaba okay meeshas waxaan kusoo gabagabeynay qaybtii yareed ee ku saabsanayd computerka iyo sida uu shaqeeyo waa muuqaal ku xiga waxaan uga hadli doonaa luqadda computerka isticmaala hadda waxaan soo ogaanay saddexdaas qayb oo ah game aad ciyaarayso tusaale ahaan inaad fahanto gamekan siduu u shaqeynayo laptopkaada gameka waxaad